الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. الحمد لله waxaan filayaa inaan soo gaarnay barnaamijkan qaybtii ugu dambeysay hadda insha Allah waxaan halkaas oga sii socon doonaa kuwa kale haddii ilaahay waqtiga ii saamaxo. waxaan maanta joognaa su-aashii ahayd sidee ama goorma ayaan ka dareemi karaa cunugayga inuu qabo cuduradan dhimirka ku dhaca, sideen u garan karaa waalid ahaan yacni. waxaa inta badan laga dareemi karaa marka ugu horeysa uu cunugu bilaabo inuu la ciyaaro ciyaal, weliba si xor ah uu la ciyaaro ciyaal ficiisa ah ama ciyaal aynigiisa, ciyaal da'diisa ah uu la ciyaaro. markuu bilaabo inuu dhex galo, inuu la macaamilo dad ka duwan aabihii iyo hooyadii iyo waalidkiis ama dadkii uu yaqaanay iyo bey'addii uu yaqaanay. isdhexgalka noocaana ayaa waxaa loo yaqaanaa social life. taasina waa bilowga ugu horeysa uu cunugu bilaabo inuu bulshada dhex galo, waana bilowga ugu horeeya cunuga lagu ogaan karo inuu wax ka qaldan yihiin ama in uusan u dhaqmaynin sidii laga filayay inay u dhaqmaan ilmaha aynigiisa. marka tan waxay abuurtaa oo lagu gartaa cunuga, waxay abuurtaa wax loogu yeero social concern. yacni hadday social concern jirin means he's okay. social concern macnaheedu waxaa waaye in ay dadkii dareemaan, wax cunugii ka dareemaan. dareenkaas wuxuu keeni karaa marka in cunugii laga soo cawdo ama laga soo dacwoodo. waxay noqon kartaa dhaqaaqyo ama agshanno cunug uu sameeyo oo iyadana qasbi karta in ay dadkii ka walwalaan haddii cunugii ama meel dheer korayo iska soo tuurayo ama se qalin iyo wax uu isgelinayo. markaas in dadkii dareenkoodii inay cunugan u walwalaan iyadana waa suuragal. marka si kastaba ha noqoto, wuxuu cunugaas qaadayaa tallaabooyin bedelaysa dadka markaas uu ku dhex jiro, ama ha ka weynaadaan ama ha la ekaadaan, yacni emotionkooda ee ka dhigaysana inay fiiro gaar ah siiyaan. waxaa kaloo ka mid ah in uusan cunugan eye contact samaynayn. marka eye contact waxaa waaye cunugii oo kusoo fiirinayo, yani markaad la hadlaysid. usually dadka markay isla hadlayaan luuqadda afka kasoo baxaysa keliya ma aha, haddana waxaa fiiriyaa qofka wejiga, labada qof inay is arkaan waa very important, waa muhiim. sababtoo ah markaa qofka la hadlayso ama cunug ahow ama qof weyn ahow, qofka aad la hadlayso waxaad garanaysaa shucuurtiisa, ereyada aad leedahay in ay bal wax ka bedeleen qofkan inuu jeclaadaystay, si adigana markaas aragtidaadii ama ereyadaad soo waday a wax uga bedesho. marka caruurta marka imaato adduunkaas kuma jiraan. marka hadduu cunugii eye contact sameeyo waa laga yaabaa inuu la imaado waxyaabahaas. hadduusan marka eye contact samaynin ama uusan fiirinin, waxaa dhacaysa xaalada in qofkii uu la hadlayay uu xaalad gooni ah ku jiro, xanaaqay, faraxsan yahay, cunugiina uu hawshiis iska wato oo xaalad kale ku jiro. iyadana waxay abuurtaa in markaas maxay ahayd xaaladaha noocaas waxay abuuraan in cunugaas si kale loo arko. waxaa kaloo iyadana dhici karta in cunugan uu qabo irritation ama xanaaq, ama haddii dadka soomaalida waxay dhahaan wixiisa haddii la taabto cunugan waa kacaya oo kale. marka xanaaqaas faraha badan waxay ka turjumaysaa cunugan inuusan controli karin emotionkiisa, what they call emotional expression. oo ah emotional expression macnaheedu waxaa waaye in cunugan uu ka dhunsan yahay qaabaddu u controli lahaa wixii asaga uu dareemayay, ama xanaaqa u keenaan ama farxad ha u keenaan,
ama sad ha u keenaan ama keer ha u keenaan yacni siduu ku xallin lahaa ama siduu kugu soo gudbin lahaa sometimes waxuu rabaa uu u baahan yahay wuxuu kugu soo gudbinaya qaabad xanaaq ama qaylo uu kugu soo gudbinaya sometimes marka labadaas aan kor ku soo sheegay waxay ahaayeen laba ka turjumayo social factorka ama dad isdhexgalka dadka iyo dad inuu qof cunugan dhexgeli karo ayay ka turjumaysay mana ahata keliya laakiin waxaa jiro kuwo kale waxaa kaloo cunuga laga fiiriyaa marka learning problem ama waxbarashada xaggeeda wixii la xiriira waxbarasho markaan ka hadlayno ama fahmitaan aan ka hadlayno waxbarashada fahamkee la xiriirtaa fahamkana wuxuu xiriir la leeyahay qofka inuu attentionkiisa joogo iyo siduu u arko wuxuu baranaya yacni perceptionka uu ka leeyahay wuxuu baranaya labada ugu waaweyn ee la xiriirto waa labadaas saynis yahanada marka qaarkood oo barto social science waxay yidhaahdaan ilmahan intuusan imaanin ka hor ayuu busy ah yacni maskaxdiisa wax kale ku mashquulsanayd oo preoccupied ay ku ahayd wax kale ama wax kale ay ku mashquulsanayd maskaxdiisa waxaa kaloo jirta iyadana cudurro kale oo iyagana ilmaha ku dhacaan sida dyslexia oo ah cunuga inuusan markii iskuulka uu joogo learning aan ka hadlayn uusan akhriski ay dhib ku tahay iyadoo marka noocyo fara badan iyadana ku imaato marka iyadana laga hadlayo xasuusta oo kale sidoo kale xasuusta ama child memory iyadana haddii cunuga ku yaraato uusan xasuus lahayn ama ay aad ugu yartahay xasuusta waxay keeni kartaa inuu soo celceliyo problem yani impulse control tusaale haddaa tan idinka siiyo yani cunuga waxaa u sheegaysaa waa ka celinaysaa adiga waalid ahaan fariintii waa gudbisay waxaa u qaadatay cunuga inuu ku fahmay ama waaba dhibaataysay ama waa ciqaabtay whatever it is cunugii laakiin ha ooyo ha ka xumaado ha laga joojiyo waxa yar kadib wixii waa hilmaamay isagoo wixii kor taagan arkaysaa arrintan aaday u dhacdaa waalidiin badanna waxay dhahaan haddaan u sheegay maxaa ku dhacay hadday arrintaas aad u soo noqoto iyadana waa indication cunugan somehow xasuusta inay yar tahay oo waxyaabaha inaa waalidka jeegarayaan ay tahay cunugan inuu wixii fahmay ee xasuustiisana ay jirto meesha ay taaganta waxaa jiro hormoon ama dheecaan ay maskaxda soo saarto oo la dhaho acetylcholine dheecaankaas wuxuu muhiim u yahay xasuusta working memoryga fikirka iyo dhaqdhaqaaqa muruqyada marka meesha waxaa ka garan karnaa xafdinta wax in la xafdiyo hadduu qofka wax xafdiyo oo wax uu xafdinaya ay jirto in marka shaqadaas maskaxda ay qabanayso plus nutrition uu haysto in ay keeni karto in acetylcholinkii productionkeedii uu si caafimaad leh cunuga caafimaad qabo uu u bilowdo waxaana laga yaabaa tan inay tahay sababaha qur'aan xafdinta ay maskaxda ugu fiican tahay allahu aclam allah knows the best haddaa isku daya marka inaan soo koobo waxyaabaha cunugaaga ay fiican tahay inaad adiga ka fiiriso ay ahaayeen ta koowaad in cunugan markaa la hadlayso uu eye contact samaynayo uu ku fiirinayo emotionkaaga taasoo ka caawin doonta hadhow banaanka markuu tago oo ilmo kala dhex galo iskuul uu tago ka caawinayso in uu xasuusanayo waxaa ka celisay uu garan karo in waxaan laga celiyey iyo in xasuustiisa ay yar tahay iyo kuwii kale aan kasoo hadlay haddaa gadaal ugu noqoto cajiradda waxyaabaha waxay kaa caawinayan marka inaa adigii waalid ahaan aad dareenta laakiin intaasoo keliya ma aha waxaa kaloo aan rabaa inaan yarahe caddeeyo mental illness iyo psychiatric waa laba wax oo isu dhow
oo overlap isku sameey oo haddana laba wax kala ah. yacni mental sickness marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa cudurro imaada sida hargabka oo kale oo haddana taga. psychiatric laakiin marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa cudurkii inuu weynaaday uu heer sare gaaray qofkaasna ay u baahan tahay in aad wax looga qabto waxyaabihiis. marka labadaas dhexgalka bulshada iyo cunuga aqligiisa iyo xagga waxbarashada waxaa iyadana weheliso oo cunugii markuu banaanka u baxo usually waxaan ka hadlaynaa cunugii banaanka markuu u baxo ama wuxuu joogaa field uu ku ciyaarayo meel beer ah oo ilmo kula ciyaarayo ama iskool uu bilaabay oo gradadii ugu horreeyay iskoolka waaye ama daycare agiisi. intaasu arrimooday noqon kartaa. marka cunugii markuu uu banaanka kaaga baxo waxyaabaha oo laga fiirinayo waxaa ka mid a iyadana oo cunugan laga garan karo nooca waalidka uu ka imaaday. yacni dad badan waxaa laga yaabaa waalidiin badan inay cunuga keliya fiirinayaan laakiin cunuga naftirkiisa ayaa waxaa laga gartaa waalidku ka imaaday. dhibaatada ay haysata cunugana waxaa laga yaabaa in ay oga imaatay qaabadda waalidka ay u korinayaan iyo qaabadda waalidka ay ula dhaqmayaan. marka laga hadlayo marka noocyada waalidka waxaa laga hadlayaa 4 hab oo waalidka ubadkiisa ula dhaqmo. 4taas hab afka qalaad marka lagu sheego waa authoritative, indulgent, authoritarian and neglectful or uninvolved. laakiin af Soomaali haddaan ku jilicsano waxay noqonaysaa waalid xilkas ah, waalid aan xilkas ahayn, waalid macangaga iyo waalid daayac ah. insha allah mar kalaan sii kala bixin doonaa laakiin labada ugu daran yacni laga fiiriyo waxaa waa inuu cunugan ka imaaday waalid macangaga oo authoritarian ah inuu ka yimid iyo inuu ka imaaday waalid daayaca oo cunugii daayacay. labadaas hadduu ka imaaday cunugaas dhibaatadiisa ka haysatay waalidka waxaa laga baaraa meeshaas. haddaan usoo laabto dadkeena muslimiinta ah oo aan isbarbar dhigno cunuga ka imaanayo guriga salaada laga tukado qur-aanka laga akhriyo ay ka jirto xayaatada islaamka ka jirto lifeka islaamka uu ka jiro iyo guriga islaamka laga sheeganayo aanan la tukanaynin salaadii waxaa laga yaabaa dadka inay muslim yihiin laakiin salaadii aan la tukanaynin qur-aankii lagu akhrinaynin yacni waxay keenaysaa confusion ee cunugii u keenay markuu wax fahmitaan soo gaaro. marka muslimiinteenna dadka ah oo ku nool wadamada aan islaamka ahayn cunugii naftirkiisi markuu ka soo baxo xayaatadii guriga muslimka ahayd ee ka jirtay uu iskuulka imaado wuxuu kala kulmi karaa waxyaalo kale oo markaas maxaa la yirahdaa adjustment u baahan. isna cunugii inuu dhibaato qabo laakiin wuxuu u baahan yahay adjustment environmentigii uu ku jiray si uu ula qabsado environmentiga cusub ee cunuga u galay. waxaana tala ahaan waalidiinta ah inay mar walba ogaadaan ilmahooda inay iyaga mas-uul ka yihiin. dadka ilmaha loo geeyo ama lagu aamino ama iskool ha noqoto ama doctor ha noqdo ama professional noocu doonaba ha noqdo bini aadinka qofkii professional iyo qofkan professional ahaynba meel kasta adduunka waxaa la dhaho racismka waa ka jiraa. waxaa la dhaho diin nacaybka kalar nacaybka waxaasoo dhan waa ka jiraa, waa jira dadka ku dhacda. sidaas aawadeed waxaa loo baahan yahay waalidka inuu dhowro muhiimadda ilmihiisa, daacad u ahaado ilmihiisa, dabagal ku sameeyo, ogaadana waxay ilmahaas markaas ku sugan yihiin. waalidka waxaa looga baahan yahay marka talo ahaan inuu iska ilaaliyo asaga naftirkiisa inay ku dhacdo emotionkiisa inuu isbedelo. lacalla haddii cunugiisa wax looga soo sheego waa inuu ogaadaa waxa cunuga laga sheegayo ma jirtaa, waayo wax cunugaaga adiga waalid ahaan kaa badiyo ma jirto.
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.